السلام عليكم أخيارتا maanta waxaan ka hadlaynaa mowduuc aad iyo aad muhiim ah. Waxaan ka hadlaynaa khaladaadka ay sameeyaan ardada markay joogaan galaaska. Waxaa jira khaladaadyo badan oo ay sameeyaan ardayda markay ku jiraan galaaska ama ay wax baranayaan. Lambarka koowaad, waxay sameeyaan hal meel ayay fadhiistaan badanaa. Haddii aad badanaa hal meel fadhiisatid, aad hal kursi aad badanaa fadhiisatid, ma wanaagsana. Waxaa fiican inaad meelo kala duwan inaad fadhiisatid. Qofka bilaadanka ah waxa uu fiican inuu meelo kala duwan inuu fadhiisto. Midda kale waxay ka saacidaysaa inaad meelo kala duwan fadhiisatid. Waad ku caajisaysaa haddii aad hal boos aad mar walba fadhiisatid. Marka badanaa khaladkaas ardada way sameeyaan. Marka iska ilaali inaad hal meel ku ekaatid weligaa. Maalinba meel fadhiiso. Lambarka labaad, inaad hawlo kala qabatid markii aad ku jirtid galaaska ama aad wax baranaysid. Haddaba ha qaban wax kale markaad ku jirtid galaaska. Focus-ka waxaa saartaa waxbarashada iyo waxaad u timaaday galaaska aad ugu soo xaadirtay. Ha qabanin hawlo kale oo dheeri ah. Lambarka saddexaad, khaladka ay sameeyaan ardada badana waa inay ku yimaadaan gaajo. Haddii ay gaajada aysan sababin duruuf darteed, marnaba galaaska ku soo xaadirin gaajo. Sababtoo ah maskaxda bilaadanka waxay ku shaqeysaa arnaji iyo iyo nafaqo. Haddii intaas bay aad heli weydid, waxaa dhici karta inay xiisadu kugu soconin, in waxyaabo kale xanuuno kale aad gaas u kugu kaco. Marka khaladka badana ardada way sameeyaan, laakiin wax fiican maaha. Iska ilaali badana marka soo xaadiraysid waxaaga soo buuxso. Lambarka afraad, khaladka afraad ay ardadu badanaa sameeyaan waa break time-ka. Break time ha qaadan marmarka qaar. Haddii aad break time-ka aad hawl leedahay, ha qaadan. Badanaa waxaad arkaysaa arday break time iska qaadanaysa oo bannaanka iska aadaysa ayagoon wax yoola bannaanka u aadin. Haddii aad u baahan tahay break time, wax yar qaado, inta kale ka faa'iidayso. Waxay kaa saacidaysaa inaad noqotid qof yool leh, qof imtixaankiisa buundo badan keena. Waxyaabo badan ayay kaa saacidaysaa. Lambarka shanaad ama khaladka shanaad ee ardadu sameeyaan waa khaladka ugu weyn ee ardadu badanaa sameeyaan. Ha isticmaalin social media marka aad wax baranayso ama aad galaaska ku jirtid. Run ahaantii waxaad arkaysaa arday xiisadii socota, macallinkii wax sharaxaya ayuu wuxuu la soo baxayaa Facebook. oo Facebook ayuu comment ka bixinayaa, waxa ayuu soo post garanayaa. Run ahaantii ma wanaagsana. Waxa fiican inaad xiisadaada la socotid. Midda labaad, waxaad arkaysaa arday baabij ciyaaraya oo game galaaska ku dhex ciyaaraya oo xiisadaba aan la soconba, halkaas qor iyo wax dad kuleynaya. Marka run ahaantii khaladkaas waa khaladka ugu weyn ee ardadu sameeyaan. Khalad wax fiicanna maaha runtii. Haddaba iska ilaali khaladaadka markii aad wax baranayso ama aad galaaska ku jirto. Badanaa waxaan jecelnahay inaan ardada la talino oo waxyaabo badan oo anfacaya aan u soo gudbino. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Fadlan haddii muuqaalkan ku soo gaaray, fadlan subscribe noo saar.